caalamkeena meesha ugu hooseyso ayuu maraa meelaha u badan yahayna mawjad ma lahan noolahani wuxuu ugaarsado waxaa ku nool noolayaal kale noolahani malaayiin sano ka hor siduu halkan ku yimid qaabkuusa ku noqday noolaha ugu awoodda badan ee halkan ku nool badweynta Pacific ee galbeedka Mexico halkaasi waxaa ku yaala dhul dhagaxley ah waxaa lagu magacaabaa Isla Guadalupe waxaa jira dadyo fara badan oo halkan soo booqda ayagoo doonaya inay arkaan noolahani la yaabka leh laakiin arrimahaasi markay sameynayaan waxay ku dhex jiraan shabaq ayga badbaadiya haddana meesha ugu hooseysa waxaa ka soo muuqanaya noole la aqoonsan kara qaab ahaan markaad fiiriso markuu ku socdo biyaha buluugga dhib uma arka asaga waxaana lagu magacaabaa libaaxii badda ugu awoodda badnaa si markaad u fiiriso waxaa laga yaabaa bil'aadanka inay yihiin ugaarsadayaasha ugu sarreeya adduunka laakiin gunta hoose ee badda markii la jooga waxaa ugu awood badan libaax badeedka noolahani markii aan wajahayno 100% waan taxadarnaa xayawaanaadkan markay noo soo dhowaanayaan waxay noogu soo dhowaadaan inaan siino waxyaabo aygay cunaan ama dhawaqa aaladaha aan wadanno amaba garaaca uu samaynayo wadnahayna